askarti markay dadka u yimaadaan askarti dawladda hoose waxay dhayaan $10 naga siisto dalaayadii dadka la qaybinayay madafci qaadan mayno deynta laga soo deyn maayo jeelkii madheera ma hol jabsan maaye waxa ka dhalanaya cadaalad darra ka dhalatay imaka wax ka dhasheen cadaalad darra ka dhalatay waan arkay qaar caalanka Soomaalida ku wareejiyay oo laha waxa laga soo diray xamar oo waxa war hadaan kii joognaado anagana dibirta waxaan tiraahdaa xamar baa laga soo diray waxaan moodaa imaka xariga siyaasigii inuu faraha inuu xarkaha goostay dadkeenan degan Soomaaliland dhibaatooyinkii uu ka kacay waxa kamid ahaa xariga siyaasiga wax walba waynu ku weynay inaan xarig siyaasi aanu dhicin wax walba waynu ku weynay maanta waxay maraysaa arjuqna bay maraysaa baraha bulshada waxa wareegaya laba hablood mid burco waxay uga timid soo dhaweynta madaxweynaha madaxtooyada lagu qaabilay inantii kale ee tiri doorashadu waxay dhacaysaa 13 ee hal arkoona waxa la yiri waxa loo aaneynaya in xarigeeda inta annagu waxaan leenahay waryaaraheen dadka xornimadooda ha ku hadleen dadka wixii sharcigu fasaxaya ku hadleen yaanay dhicin qof lagu xiro af u ku hadlay oo aan wax alaali wax dambi u leeyahay aanu jirin oo wax ku tilmaamay anigu waxaan rumaysanay anigu aqal baanay waxaan rumaysanay doorasho kasta inay waqtigeedii noogu dhacdo oo taa madaxtooyada 13 Noofambar aan la dhaafin oo tii guurtida noo dhacdo oo ururada la inoo furo oo mid walba waqtigeedii dhacdo doorashada maran ka hadlana saddex doorasho deegaanimada ayuu ku jiray oo la sugayay doorasho wax walba u dhamaayeen waa dadka wada lagu xirxay waa tii madaxtooyada labana shuruuc baa u dhiman anu waxa leeyahay taa shuruuc laba shuruuc u dhameeyna shuruucdoodii hala dhameystiro taana siday ahayd ha loo qabto wax kasta inagoo abaaray in halakaysay oo dabino xogay haddii muran siyaasadeed iyo qallaasa siyaasadeed inoo raaco wax walba waynu ku waayna midda kale ninkaynan tayar ku xidhaya hadalay tiri muxuu ugu xidhi waayay kuwan ka hanjabaya meel walba ee beelnimada ku hanjabaya ee madaxweynaha iyo wasiirka daaqliga labada reer ka kala dhasheen ka soo kala jeeda ee midna burca ka hadlay uu leeyahay waxaan ahay koobaada wallahi inaad halkaad gali jirtay gali ka kalena leeyahay wallahi intaan ku xiro isbaarooyin ilaa burco ilaa berbere ilaa hargeysa in seediye iyo lagu mari doono abti kuwaas meen dambi qabanayn waxaan xasuustay gabaygii cabdi yidaan ha waxay dameertu hooyada dabada uga nuugtaa dabaciye isku hadlayn ma dambaa bidhaa garo dibinjaaq ma hadalba nin la diray ma madaxba dawladii ma reerba runtu dacar miyay tahay dimuqraadi waa maxay cabdiida ma hore ula hadlay dadka waxa weeyaan annagu waxaanu qabnaa inan taayir kuwii ka dambe weynaaye ka hanjabay meel walba kuwa la soo qabtay kuwii laayay maxaa loo soo qaban waayay wariyaasha ee baawurtoodii jabiyay ee kumbuyuutaradoodii qaatay ee qaatay maxaan ku dhahday mobiladoodii qaatay maxaa kuwa la soo qaban waayay maxaa kuwa loo xidhi waayay maxaa kuwa nololtiisi waayay mee bilayskii madaxdii bilayska ee waxa yaree dhacay shir jareed qabato oran jirtay waxa si qofkaas dambiile ku yahay oo sharciga sa qabanaya meeye waxaan leenahay wadankanu kuma soconayo sidaa maanta uu ku jiro ku socon maayo wadankanu madaxda aanu dooranay ee noo talisaa waxa ka bedesho haddii waxaan og tahayna waxa ka qabato dee haddaan ogeyna u sheegnay anagu maxaa ka dhalan karaya arrintan gabadhan lagu xidhay magaalada dee waxa ka dhalan karaya waxa weeyaan in madafci qaadan mayno deynta laga soo deyn maayo jeelkii madheera ma hol jabsan maaye dee waxa ka dhalanaya cadaalad darra ka dhalatay imaka wax ka dhasheen dee cadaalad darra ka dhalatay waayo inantu anigu waan dhageystay hadalkeedii haddaan meel kale ka hadal inantu waxay may oran suuqaan anigu fadhiisan jiray may oran waxaan ahaa dadkii wax ka gubteen inaan walanay baa khudran meesha ku jirtay bay tiri nin askari ay sheegtay nin qura oo askari ay sheegtay oo tiri ninkaasaa naga dalbaday hal shan dalaayadan harka $10 inuu noogu keeno dee maxaa ku jira hadduu isagu khaldamay oo inaan tira sheegtay miyaan ahayn in ninka khaldamay la qabto ama la weydiiyo ama haddii la garanayo la raadiyo inantaas waxa weeyaan waxa leenahay anigu ka caaqilaan ku soo jeedinayaano caaqila inanta dambi may gelin ha la sii daayo xorriyadeeda ha loo celiyo waan arkay qaar caalanka Soomaalida ku wareejiyay oo laha waxa laga soo diray xamar oo waxa war hadaan kii joognaado anagana dibirta waxaan tiraahdaa xamar baa laga soo diray oo guli gobol dadka oo dhan wada yaqaano waxaan tiraahdaa xamar baa isaga laga soo diray war xamarna dadka laga ma soo diro xamarna waa tan madaxweynaha waa tuuy labada madaxweyne wada hadlay
telefoonada ku wada hadleen halkii u dambeysay weeye weli kuwa isdilayee isbaabiye ruush iyo ukrainiya weli may wada hadal dad kale wada hadla inaga labadeeni madaxweynaha ba wada hadlay waxay isku yidhahdeen ilaahay baa og lacagtiina waa kii lainoo soo daayey xamarna dadka ma cunto waxaynuna beed maaha jabaya qarannimadeennu beed jabaya maaha ina yarbaa shaar buu laga xidhay ha la xidho waa qaran dubis kalbinta loo isticmaalayo ina yarbaa adeer waxa weeyaan waad garanaysaa wax loo soo maray dalkan inta haliyey ku maqan waad garanaysaa kuwa maantana xukumaan noogu hogaaminayey kuwa maantana xukuma ee dowladdeeda haysta ee xukuumaddeeda xukuma ayaa noogu hogaaminayay iyaga cid uga warrooni ma jirto dalkan waa go'aan shacbi walaala suuqan dee waad ogtay inay dhibaato ku dhacday inuu suuqu gubtay oo ay dadkuna ku soo koobeen waa qadar weeyaan lacagtii iyo qaadhaankan iyo waxaan la isku haystaa dadkan ma quseeyaan dadkan halkan jooga dadkeena dhibaataysan maalin kasta ku shilin baa laga qaadaa inantan waa walaashay weeyaan halkan carruur yar aabahood xanuunsanay u soo shaqo tagtaa fooqan bay alaabada habeenkii aanu ku xareyna 8,000 shilin baa laga qaadaa 8,000 shilinna kama soo baxdo gawaadhida waa idinka arka halkan baa laga rakaabsanaya waa gawaadhidii sayladu dib bay noo soo wada galayaan halkan askarti markay dadka u yimaadaan askarti dawladda hoose waxay dhayaan $10 naga siisto dalaayadii dadka la qaybinayay annaga hal dalaayadana lama siin 3 baanu iminka taa ku wada leenahay marka dadka waxaanu codsanaynaa annagu madaxweynaha horta codsi uma jeedinayno ilaahay baan u jeedsanayna iyo ganacsatadii aan gubanina dadkan dhaantay iyo culimada waxaan leenahay ummadana la soo gaadho madaxweynaha iyo wasiirka ina kaahina waxaan leenahay aad baan idin salaamayna doorashaduna way dhacaysaa suuqan dadku waxba uma noqonay doorashadiina waa la gelayaa way idinka arka xilli roobaad bay walaal ku jirnaa ilaahay ayna kana roob baynu suganaa haddii imika uu hooyooyin ka dhibaataysan imika roobku soo maro intanba uu qaadaya hooyo sooman oo nin la shaqaynayno oo nin caawinayno carruurteedii dadoonaysa inay halkan ka quudiso oo intaa lagaga qaaday habeenkiina $1 laga qaaday maalintiina ku shilina hanjabaad loogu darayo oo dalaayadihii waji lagu bixinayo dee wallahi waa dhibaato weeyaan siiba dooxa hargeysa waxaan halka ka sheegay anigu waxa weeye wax dhacay oo saaka nagu dhacay 7 subaxnimo anigoo tagay suuqa walaashay u tagay oo halka ku iibinaysa khudaar askari ka tirsan askarta dawladda hoose oo dalaayad nagu yiri $10 baan idin ku keenayaa waan warka anigoo xanaaqsan oo iska ahayd maalin soonaana aan hadlay qofkuna inuu dareenkiisa cabiro dastuurka Soomaaliland baa dhigayo sheegayo qeexaya marka wax anigu igu dhacay oo leef igu dhaco ilaahay igu ogay waan afxidnaaye ayaaban ka hadlay wax kale ma ka hadlin maayirkaygana waan jeclahay cabdikariin axmed mooge 5 subaxnimo noo codeeyay madaxweyne saare yahay waanu shaqaynayaa xumaan ma laha ceebna ma laha ilaahay uu ka dheereeyay waa xalaal cun laakiin askartu sidoo shaqaynayo wax la mudo si khayr khaldanina ula shaqaynaya ilaa inamada gooyo jawanka cabdikariin axmed mooge